inuu ka gudbo caqabado fara badan, taas oo suuragelinaysa inuu arko wax badan oo dadka kale ka qarsoon. Aragtida uu arkayo hadafkiisa waxay siinaysaa awood dheeraad oo keenta sugnaansho iyo degnaansho uu ku waajahayo dhib kasta oo ka hor timaada. Dhibaatooyinka noloshana ka dhigtaa mid uu si dhib yar uga gudbo. Maxaa ka fiican inaad xaqiijiso wax dadka kale ku adkaaday, sida uu yiri Aristo. Kalsoonida nafta. Marka aad qorato hadafkaaga oo aad dejisato qorshahaaga, waxaad arkaysaa in kalsoonida naftaada ay si weyn u kordhayso. Kalsoonidina waxay la kordhaysaa markasta naftaada maamulkeeda ay korodho oo aad awood u hesho xaqiijinta hadafkaaga. Kalsoonidaas oo ku horseeda horumar dheeraad, taas oo kaa dhigaysa ruux ku habboon xaqiijinta natiijooyinka waaweyn. Ruuxa naftiisa ku kalsoon ma jirto cid ka hor istaagi karta oo ka joojin karta waxa uu doonayo, sida uu yiri ninkii la yiraahdo Archimedes. iyo calaamadee meesha aan u socdo, waxaan ku dhaqaajinaa dhulka. Saraynta nafta. Ruuxa qiimihiisa wuxuu ku xiran yahay kolba waxa uu xaqiijiyo inta ay la eg tahay oo hadaf sare, oo marka uu xaqiijiyo hadaf haddana mid kale u sii gudba. Xaqiijinta hadafka waxay ruuxa ku abuurtaa ixtiraamka naftiisa iyo qadarinteeda iyo inay rumaysato awoodeeda. Waxaadna arki doontaa in caqabad ku soo wajahaya ay xamaaskaaga kiciyaan si aad qorshe fiican oo kale u dejiso oo maskax furan oo kale uga fikirto, taas oo kaa caawinaysa in maskaxdaadu si ballaaran u fikirto oo fikirkaagu furmo. Maamulka waqtiga. Marka aad xadido hadafkaaga, waxaad arki doontaa in naftaada ay baahi u qabto inaad nidaam ku socoto. Marka aad dejiso waqti go'an inaad ku xaqiijiso hadafkaaga, waxaad arki inaad tahay mid aad ugu guul gaara shaqada uu qabanayo, iyo inaad waqtigaaga si fiican u maamusho, adiga oo ka fogaanayo inaad daqiiqad oo kaliya ay kaa lunto ama ay kaa beerdarowdo, iyo inaad waqtiga ku lumiso waxaan faa'iido lahayn.